casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay basic percentage problemka. Okay, waxaa la weydiinayaa waxa shay number oo macnihi ka noqonaya percentage number kale intuu ka yahay, ama waxaa la weydiinayaa laba number inta ay percentage isku yihiin, ama waxaa la weydiinayaa number inta lagu siiyey percentage in lagu siiyey numberka kale intuu noqonayo. Aan ku bilowno midkan horeeya. Waxaa la yidhi one number is 15% of 65. waxaa la weydiinayaa number kaasoo la mid ah 15% of 65. Okay, xisaabta marka saa u qoran tahay kama aan shaqayn karno because waa qoraal, waa inaan xisaab ahaan formula aan u dejinaa, formula ahaan u qornaa. Okay, inta tan one number bay ku weydiinaysaa. Numberka miyaa naqaanaa? Maya. waxaan usoo qaadanaynaa n oo waxaan la aqoon leedahay number waa n. is goonideeda ayadaan usoo qaadanaynaa. iyaduna is maxay tahay? waxay la mid tahay equal 15%. 15 marka loo qaybiyo 100 ilan waa 15% moogta. 15 100 marka loo qaybiyo waa 0.15. of maxay tahay? of waa times. of waa times inaan usoo qaadana waaye. then maxaa noo haray 63 sideeda inaan usoo qaadana waaye. hadda marka wixii nala weydiinayay equationkeedu waan samaysanay, waan ka shaqayn karnaa. marka sidaa markay tahay caadi ayaan ooga shaqayn karnaa. Okay, numberkan aan la aqoon wuxuu la mid yahay 0.15 lagu dhuftay 65. so marka n waxay la mid noqonaysaa n waxay la mid tahay 0.15 marka lagu dhufto waxa la yiraahdo 65 maxay noqonaysaa? waxay noqonaysaa 9.45. 9.45. 15% marka oo 65 ah waa 9.45. because number ayaana la weydiiyey, numberkii n buu noqday ma naqaano. so n hadda waxay la mid tahay intaas. taas waa taas oo markana la weydiinayo numberka lagu siiyo 15% iyo numberkii weynaa weeye. okay, haddii lagaa weydiiyo marka oo la weydiiyo waxaa la yiraahdo percentage lagu siiyo numberkii weynaa, haddii percentage lagu weydiiyo numberkii weynaa lagu siiyo kii yaraana oo sida hadda kan oo kale lagu weydiinayna aad haysatid, waxay noqonaysaa sidaan horey ugu sheegaysaan waxay u qoran tahay qoraal. waxaan u baahannahay inaan turjino oo aan u qorno formula ahaan. okay, waa percentage baa la yiri. waa percentage miyaa naqaanaa? maya. aan usoo qaadana marka percentage b baan usoo qaadan karnaa. percentage b baan usoo qaadanaynaa. okay, percentage markaan b usoo qaadano intaana of maxaa niri? of waxaa niri waa ku dhufasho lagu dhuftay waan leenaha. marka lagu dhuftay meeqa? 84. is maxaa niri? is waxaa niri waxay la mid tahay weye. waa qoran waxay la mid tahay 21 ayaa soo haray. 21 de waa xisaab ahaanba u baahanay sideeda in soo qorana wax aan turjumayno ma ahan. okay, iminka waxay noogu qoran tahay xisaabteeni formula waa b oo nagu taagan percentage lagu dhuftay 84 waxay la mid tahay 21. okay, waxaan u baahannahay percentage waxay tahay inaan ogaano, waa inaan solve garayno. sidaan looma shaqayn karo ma ahan macnihii inay tahay sida caadiga ah oo leedahay. okay, waxay noqotay intaan waa inaan b keligeeda gooni u taagan uusan number waxba ku dhacayn oo inaan helno weye. sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan idhaahno okay, b waxay la mid tahay oo la mid tahay halkaan aan keeno kan dhan kasta macnihi waxaan u qaybinaynaa 84. halkaan loo qaybiyo 84
halkaana loo qaybiyey 84 so kan iyo kan isku baxayaan kan halkaan soo maraya marka saasay noqonaysaa. Okay 21 marka kan iyo kan isku qaybino intaana soo haray b waxay la mid tahay 21 loo qaybiyey 84 so waxaan noqonaa b waxay la mid tahay 21 over 84. Okay percentage marka intaas la mid tahay maadaama percentage na la weydiiyey ogama tegi karno sidaas waa inaan sii qaybinaa percentage waxay tahay aan sii keenaa. Okay 21 loo qaybiyey ee waxa la yiraahdo 84 waa meeqa waxay noqotay inaan isku sii reduce garayno barta u yar 21 marka halkaan loo qaybiyo waxay noqonaysaa kan waa hal 21 kan marka loo qaybiyana waa 4. Okay intaa markay sii tahay markaan caadi isugu qaybno intaan waxay la sii noqonaysaa 0.25. Okay 0.25 baan la weydiiyey 0.25 markay tahay waxaa istirna laga sii rabaa percentage inaan ka dhigno oo u bedelo percentage sida tan oo kale. Okay sidii caadiga ahayd ba marka hore markaan decimal bedelayno percentage-ka waxaan usoo move garanaynay 2 point dhankan hadda dhankan ayaan move garaynaa markaan laba jeer halkaan move garayno waxay noqonaysaa 1 iyo 2 25 percentage because decimalka ayaan halkaan laba jeer move garaynay 25 bay noqotay that means 100 baa loo qaybinayaa so marka 25% bay noqotay taasuna. Okay tan ayaa noo soo hartay mar waxaana la weydiiyey numberka u horeeya mar percentage-ka ayaana la weydiiyey oo kana hadda numberkan ayaana la weydiinayaa marka wuxuu yahay waxaana la siinayaa numberkan iyo percentage-ka ayaana la siinayaa oo tan ah. Okay waxaa lagu yiri 30 is 40% what number. Okay waa inaan translate garaynaa oo macnaheedu u bedelnaa equation haan u qornaa qaabka xisaabta aan ugu shaqaysan lahayn. Okay waxaan leenahay 30 waxba dhib naguma hayso waa 30 waa xisaab is ayaan bedelaynaa oo nologa baahan inaan turjino oo ah waxay la mid tahay 40% inaan waxayna weeye 40% si aan sheegay halkaas uu decimalku yaalaa dhibicdu boqolka marka loo qaybiyo 40 waxaa weeye waa 1 2 marka waxay noqonaysaa 0.40 because decimalku mar walba halkaas u yaalaa waa soo move garay. And of one number of baan ka tagay halkaan lahada of one number lagu dhuftay one numberkii ma naqaan waa n inaan usoo qaadano sidaa darteed hadda equationkeena waa noo waxaysan yahay waxaan u baahanaa inaan solve garayno sidee marka equationka u solve garaynaynaa numberkan kan waa points kan like waa multiplication daartaan number marka uu ku dhacsan yahay number haddii la rabo intaa kaliya inta number way taaganta laakiin lama yaqaan marka la rabo in la soo ogaado waxay tahay ilaa waxaan la weydiinayo waa iyada waxaan u baahanaa kaligeed inaan soo helno kanna waa ku dhufasho see u heli karnaa marka waxaan ku heli karnaa dhan kasta inaan u qaybino numberkan numberka ku dhegan oo ah 0.40 maadaama aan dhankan ku sameynay equalna u dhaxayso waxaan dhankan ku sameyno waa inaan dhankan ku ridno haddii la rabo inaan miisaano miisaan caadi ah oo kiilo meel saarno kiilo sokorna waa inaan dhanka kale ku shubnaa si miisaanka isku leekaado waa sidoo kale marka maadaama aan 0.4 halkaan sameynay 40 halkaana 0.40 inaan u qaybino way ayadana. Okay sidaa markay tahay kan iyo kan waa isku kasal garaysmayaan xisaabteena marka waxaa noo soo haraya inay noqoto 30 loo qaybiyey 0.40 ayaa waxay la mid tahay n. Okay inta haddaba markaan isku qaybino maxaa soo baxaya numberkan laga rabay inuu noo soo baxo weeye 30 loo qaybiyey 0.40 waa 75 sidaa darteed numberkeenu wuxuu noqonayaa n waxay la mid noqonaysaa 75. Okay example-kani halkaan waa ayuu ku dhamaaday tusaalayaashani
laakiin waxaa loo baahan yahay inaa ogaato qaabka loo turjumayo oo macni xisaab ahaan equation lagu qorayo. one number marka la yiraahdo ma naqaan, so waa inaa n u dhiganaa. is meesha ku aragtidna waxay la mid tahay weeye, kan way bedeli kartaa sida dabcan filayo oo decimal waa ka dhigi kartaa, ofna inaa ogaatid marka sidaa u turjuntid n waa solve gareyn kartaa. hadday n intaanay la mid tahay that means intaan way isku dhacayaan n bay la mid noqonaysaa, waa simple down. kan 1% baa la weydiiyey of oo ku dhufasho ah 84 inaad soo qaadatid, is waxaa la mid tahay 20. sidaa numberkaa number ayuu ku dhacayaa, sidaa darteed waa inaan helnaa b oo keligeed gooni u taagan si waxay la mid tahay ogaano. sidaa darteed 84 iyo b markay isku dhacayaan waa inaan u qaybino 84 dhan kasta oo u miisaano. labadaa marka way isku baxayaan 84 ka isku baxayaan, maxaa soo haray b da keligeed gooni u taagan iyo 21 oo loo qaybiyo 84, hadhowna numberkaaga kuu soo baxaya. kan waa sidoo kale 30 waa caadi, is waxay la mid tahay waana qorataa 40% decimalkood u qori kartaa, of oo ku dhufashaa waana ku dhufasho ka dhigtaa. one number n baa lagu weydiiyey n inaad qorato waayadana. sidaa darteed markaa intaad samayso inaad ka shaqeyso easy bay kuu tahay, wax saa u dhib badan maahan. waxaan jecelahay inaad tusaalayaal dhowr kala sii samaysaan buugagiina.